kor magacayga waxa la dhahaa Mukhtaar Diir Yuusuf oo kamid ah ciidanka xoogga gaarka ah hadda ka qalin jabinaya kulliyadda Garab Casar dareenkayga hadda ka warramo dareenkayga maanta farxadanadu aad iyo aad u fara badan tahay waayo shaqadan intaas soo haynay 8 bilood meelahaas aan soo haynay waxa weeyaan hadan maanta oo ka qalin jabinayno waxa weeyaan hadafkanagi guud ee wadanay maanta aan u baxayno waa alxamdulillah takale hamigayga iyo qorshaygu waxa weeyaan inaan dalka iyo diinta iyo dadkayga si daacad uga adeego waxa weeyaan wixii xumaata iyo dhib la rabana inaan dabarka inaan ka jabiyo anoo ku hadlaya magaca Aliyu booliska koorsada 13aad aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan nooxan rabnaa halkay ka bixin geesiyaashii hore Aliyu booliska booskoodii inaan buuxino haduu Ilaahayga wada la raali ka dhigo ayaan u baahanahay tababarka qaateen maxaa kamid ah tababarkan qaadanay waxa kamid ah tuugsiga kamid ah siltiga kamid ah gidaashka kamid ah booshaabka kamid ah digaabka kamid ah sitaabka kamid ah selfiga kamid ah qablaqaadka oo dhan baa kamid ah insha Allah haduu Ilaahayga wada la raali ka dhigo inaan dalka iyo diintayda baan faacaan u baahanahay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa tababar in muddo ah u socday u soo xiray kumanaan ciidan oo ah dufcadii 13aad ee ciidanka xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo dufcadii 22aad ee ciidanka Federal Police-ka dalka ciidamadani ayaana soo bandhigay xirfadihii tababarnimo ee ay muddada qaadanayeen waxa munaasabada tababarkan lagu soo xidhayay ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar komishineerka komishinka booliska federaalka komishineer general Dambalash Gabra Mikael mas'uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan munaasabada qalin jabinta ciidankani waxa ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar maanta qalin jabintan ka dhacaysa jigjiga ee xarunta booliska tababarka jigjiga lagu soo gabagabeeyay waxay kaga duwan tahay kuwii hore inay tahay tii ugu horeysay si isku dhafa tababar isku nooc ah ay u qaateen federal booliska iyo booliska deegaanku taas oo runtii kor u qaadaysa tayada ciidanka booliska deegaanka maadaama casharada ay qaadanayaan iyo tababarka ay qaadanayaan iyo waqtiga ay qaateenba uu ka dheeraa kuwii hore ay qaadan jireen waa tiradii ugu badnayd ee tababarata deegaanka ciidankiisa waana kuwii ugu waqtiga dheeraa waana markii ugu horeysay dadka tababartay ee deegaanka gaar ahaan booliska ah tababarka cidda qaadatay ay ku jiraan dhalinyaro ka soo baxday jaamacado oo aan rajaynayno inay noqon doonaan hogaaminta mustaqbalka ee booliska iyo ciidamadaba iyagoo oo caawin doona kuwa maanta hogaaminaya tababarayaasha waxaan dhammaantood kula dardaarmayaa inay waxiliya waajibaadkooda si hufan uga soo baxaan sidaad la socotaan dalka Itoobiya dagaaladii ka socday 4 sano u dambeysay waxay u muuqdaan kuwa gabagaboobay iyadoo heshiis nabadeed la qaatay taas oo wax weyn ka tari doonta horumarka iyo deganaanshaha dalka kaalinta ugu weyn horumarkuna waa nabadana waxay gacanta ugu jirtaa hay'adaha amniga marka hay'adaha amnigu kuwa federaalka iyo kuwa deegaankuba inay si wada jira u shaqeeyaan iyadoo deegaan ahaan hadda ahmiyadda weyn ay saaran tahay la dagaalanka kooxda argagixisada ee al-shabaab la dagaalanka isku dhacyada qabaa'ilka ee gudaha ka jira iyo meelmarinta go'aamadii horay loo qaatay si loo xalliyo khilaafaadkaas la dagaalanka kontrabaanka sharci darrada ee dhaqaalaha waddanka dhibaatada weyn ku haya in iyadoo kuwa xoogga la saarayo federal booliska iyo booliska deegaankuba labaduba ay u diyaar garoobaan iyo kaalintooda haddaba ay ka ciyaarayeen si laba jibaaraan
amniga guud ee deegaankana ay sugaan deegaanka Soomaalida dadka ku nool maanta way ka wanaagsan yihiin 30 sano ka hor say u noolaayeen way ka aqoon badan yihiin way ka dhaqaale fiican yihiin way ka dhisan yihiin nidaamahan waxa taas lagu gaaray samir iyo dulqaad iyadoo waliba 30 sanadood intiisa badan colaad iyo dhibaato iyo cadaadis dad ku jireen waxaan aaminsanahay 10 sano oo dambe haddii amniga deegaanku uu sii waaro in sidaa ay si ka wanaagsan uga muuqan doono dhaqaalaha iyo aqoonta iyo wajiga shacabka iyo nolosha deegaanka inay saas ka fiican noqon doonto ugu dambeyn mar kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas'uuliyiintii macadka hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka taliyaasha ciidanka booliska iyo booliska gaarka labadaba oo runtii si weyn isugu dabarjabiyay in tababarkan uu noqdo mid lagu guuleysto waxa kale oo u mahadnaqayaa tababarayaashii iyo mas'uuliyiinta heer federaal ee iyaguna sida wanaagsan uga qayb qaatay tababarkii socday waxaan dhammaantiin u rajaynayaa maalin farxad leh hambalyo noqda kuwii shacabkooda iyo dadkooda iyo diintooda u adeega aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kalena komishineerka komishinka booliska federaalka komishineer general Dambalash Gabra Mikael oo munaasabadani ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa ዛሬ በአገራችን በተለይም በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የስልጠና ታሪክ በዚህ ወር ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ወጣት የፖሊስ መኮንኖች ያስመረቅንበትና በተለይም ደግሞ የሶማሌ ክልል ፖሊስ maanta waxa qalin jabiyay tiradii ugu badnayd ee federal booliska ah iyagoo isku mar la qalin jabiyay markii ugu horeysay ciidanka xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaana leeyahay dhamaanteen baga ayaa nabad ku gaadhnay qalin jabintani hambaliyo sidoo kale si uu u meel maro qorshaha dib u habeynta boolisku isla markaasina booliska federaalka ay uga mid noqon lahaayeen shanta boolis ee ugu wanaagsan qaaradani Afrika ayaa waxa maanta qalin jabiyay tiradii ugu badnayd si ka duwan waqtiyadii hore kuwaasi oo laga soo kala xulay dhammaan qoomiyadaha kala duwan ee dalkan Itoobiya iyadoo sidoo kalena la sugay ka qaybgalka haweenka in maanta aynu heerkani soo gaadhno waxa door weyn ku lahaa oo ka shaqeeyay hogaaminta deegaanada dalka laga soo bilaabo dhanka diyaarinta iyo soo xulidda xubnahani dhalinyarada ah ee booliska ee maanta qalin jabiyay aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dadaalkaasi aad sameyseen aniga oo ku hadlaya magaca guud ahaan booliska waqtigani waa mid dhammaan afarta jihe ee dalkeena laga dareemayo neecow nabadeed oo ay shacabkuna bilaabeen inay u jeedsadaan dhanka horumarka maanta halkan aan ku suganahay ee bariga dalkan Itoobiya ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga oo ah astaanta nabadda iyo xasiloonida inkastoo kooxaha argagixisadu ay isku day ku sameeyeen haddana waxa isku daygoodaasi si wada jir ah u fashiliyay xoogga ciidanka gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidanka qaranka si loo gaadho nabadgelyada maanta la haystana waxa door aan la soo koobi karin ka geystay ciidanka xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida ciidankani ayaana door muhiim ah ka qaadan doona sugidda amniga xuduudaha deegaanka ka hortagga iyo la dagaalanka faldambiyeedyada magaalooyinka kooxaysiga iyo isticmaalka maandooriyaha xashishada oo dhammaantood xukuumadda deegaanku ay ka soo saartay awaamiro adag si xasiloonida bulshada loo sugo ciidamadani waxay isugu jiraan ciidanka xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo dufcadii 22aad ee ciidanka booliska federaalka kuliyadani waxay noqonaysaa ciidamadii ugu tiraha badnaa abid intii ay jirtay ee ay maanta qaabisho isla markaasna ka qalin jabiyaan dufcadani 13aad ee maanta qalin jabisay ayaa noqonaysa midii afraad ee la tababaro isbedelka kadib markii ay xukuumaddu qorshayaasheeda ugu waaweyn gundhig ay uga dhigtay dhisidda iyo tayeenta hay'adaha amniga si loo sugo nabadgelyada shacabka